السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوعا ماشي قولها شعبك waxay noqotay xerigeel bay noqotay meel fooda oo la yaab wax la yaab leh looga kacayo bal arka baleesha sida looga dhaqmay arka bal maalmahan wataqaanaan baa malaynaya aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baa wuxuu u socday inuu xil ka qaado abiib ninkan baa lahaa marka abiib waxa weeye waa wuxuu ka mid yahay dhowr qof oo gacan ku tirisa oo golaha shacabka ku jira oo hawshooda si daacad u qabsado buu ka mid yahay marka isaga waa nin xildhibaan wey haddana waxa weeye gaar ahaan waxa weeye wuxuu si fiican ula dagaaltamaa arrimaha oo musuqmaasuqada waa kan isagoo la xisaabtamaya golaha shacabka intaa markuu dhammaystiro waxaa loo gudbiyaa bangiga oo account gaarka ee ku qoran laga soo saaro hantidhoorka shaqadiisu waxay tahay inuu eego in processkii lacagta lagu soo saaray uu sax yahay kale waxaana ku jira xeerka haddii la mari waayo dembi qaran baa la gala marka abiib asaga waxa weeye hawshiisa uu qabsanayo oo weliba waxaa u leeyahay inuu qabsado waxaa ka xanaaqay xasan sheekh oo dhahay sidee ninkan uu hawlahan gacanta la soo geli karaa marka xasan sheekh waxa weeye musuqmaasuqadii uu gacmaha kula jiray waxa weeye buu toosh ku ifiyo ninka marka waxaa lasoo diray aadan madoobe lasoo diray waxaa la ninkan waana xilka qaadid baa la marka isbuucan aadan madoobe meesha yimaaday marka wuxuu socday inuu ninkii abiib ahaa inuu ka qaado xilkii laakiin asaga laftiisa bisigtay in xilka laga qaado asaga u dhawaado waa kana fiirsado diyaar u ahay wax kasta ku saabsan arrinta ilmaan abiib ka timid wax allaal wixii maartay golahaas iyo guddigaas ka keenaan diyaar u ahay ma rabo intaas riisan laga dhigto ma rabo taasna keliya waxaan rabnaa xildhibaanada Soomaaliyeed in qofkaas uu ku shaqeeyo oo hortiisa socdo marka walaalayaal sidaa daraadeed waxaan rabaa ayagana hadiidan ayagana hajoojiyeen waxaan idin ka codsanayaa Argentina loo yaal inaad u asaysaan marka ninkan aadan madoobe la dhahayo isaga haway waa nin oo istaahila hawshii shaqadiisa ma nin istaahila jegadiisa ma fiirsada bal ku hadlaya arag ay aflagaado meesha la fadhiya dhigeysa hilbaan nuug waqti badan qaysay wilba jiisna waa daashay meel fadhiisa walaal hilbaan hasayere daraad qaladkaad gashay waa loogaa meeshana dad ku dishay waa ku cafiinay haddana bilayda sii wada walaal meel fadhiiso taasaan ka codsanaya hilbaan axmed buux meel fadhiiso hilbaan daahir jeesow waa yala tahay kursigaaga fadhiiso tana meesha dadka meesha laga soo buuxiyay qaarkood dad xitaa istaahila maaha in meeshaasi joogaan foodoba meesha ka dhigan mudaaharaad waa loo gelyahay inaan qaylisadu waa loo gelyahay laakiinse in lays xigto waa khaladba wax arag dhaqan xumada meeshaan kale waxa weeye waa taas qabyaalad halkaas baan dhigtay muujidaan Soomaaliya wixii ugu liitay maanta soo dirsanayna oo mas'uuliyad dhiibanayna marka ninkii oo aadan madoobe ahaa waxa weeye hawshii oo loo soo dirsaday oo ahayd in oo abiib laga qaado xilka iska daayay marka inuu arkay in shirkada ku qaraaraatay waxa weeye isu daayay arrintii oo ninkan buu soo diray oo wuxuu dhahay arrintii oo iska daynay oo arrintan waxa uu direynaa bay dhahan qaybta anshaxa markuu tixgeliyay dareenka guud ee xubnaha golaha shacabka wuxuu go'aansaday gudoomiyaha golaha shacabku qodobka koobaad inuu dib ugu celiyo guddiga xeroosaadka daryeelka anshaxa iyo xasaanada arinta la xiriirta kursiga nambarkiisu yahay 201 ee uu ku fadhiyo xildhibaan Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib anshax dadka loo diray fiirsada aadan madoobe dad anshax diray oo adduunkaas kale u yimaartay